السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة إلى حد كسر دواتان برنامج جارة وعن ربنا نكون فلان قينو أرمها السياسة دالك الصومالية. برنامج كان ينمطو حنكو إيجينا دولة فدرالك الصومالية فرصة عينكي أيه ستة حق باش عالمك سيدو كلام حقيقي اللي جابها وحقبة محوس أقونسي دولة مريكان كلا شيء إني سياسة دولة الصومالية وسو كردين كره. برنامج كي maanta ayaa marti waxa iigu ah Xuseen Axmed Xalane oo ka tirsan odayaasha Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Nairobi. Sidoo kale barnaamijka ayaa waxa marti iigu ah Professor Yaxye Sheekh Caamir oo ka tirsan professorada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Cabdirashiid Cabdullaahi Ubada oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed aalaaban nala falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya isagana ka marnayn barnaamijka ku soo dhawaada markii ugu horeysay Home Cable TV. Anigu ku horeynaya Professor Caamir tan iyo markii la dhisay si parliamentary loo dhisay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa isbedelay haykalkii dowladnimo ee Soomaaliya waxaana laga gudbay marxaladii ku meel gaarnimada iyadoo loo gudbay marxalad federaal ah. maxaa isbedel ah oo la taaban karo oo way qabataa la dhigi karaa waqtiga yar ee kooban ee dowladda federaalka Soomaaliya ay shaqeynayso? muddadu waa koobneed waa dhowr bilood waxyaabo ugu muhiimsan waxaa kamid ah midalan aqoonsiga ay dibadda ka heshay oo cadeynaya inay macaamil caalami ay samay karto iyo gobolada qaar oo fuud dowladana ay tagaan oo xiriirka dowladda uu sameysmay in gobolada macaamil la sameeyo wafdi dowladda ka socda oo tago iyaguna ay yimaadeen dhinaca nabadgelyada waxa uu malaysaa inay aad u soo horumarayso iyo fursado badan oo dadkii dibadda jiray waddanka dib ugu soo naqanayaan ganacsiga booming waxa soo dhan waxa beesho rajada iyo nabadda muuqato waxyaaba ay sameeyeen marka ilaa hadda ugu muhiimsan waxa la karo wasaaradda waa qaab dhismeedkooda oo socdo oo wasiir agaasimi waxa marka hore waa koobneed wasiir agaasimi guud markaad aragtid inta hoos oo dhan ma jirin hadda shaqaalihii haykalkii ayaa la soo dhiswaaya meel badan Roma hal maalin lagu ma dhisin ma dhici karto 2 bil iyo 3 bil inaan dhahno agaasimo waaxid agaasimo qayb agaasimo waxyana ilaa agaasimo guud ilaa dhameystir laakiin waxa dareemay inay sameeyeen qorshiga dhismaha noocaas ah. waa tahay Mr. Xuseen sidaan la socono dastuurka federaalka dowladda federaalka Soomaaliya ee hadda ay ku dhaqmayso oo baarlamaanka lagu soo dhisay waxa ka qayb qaata odayaasha Soomaalida odayaashiin wixii aad soo bilowdeen maanta inay meel fiican marayaan kugu muuqataa? وما سنتهاي أرتنا وضياشي شخصيا تيدا وكغيب قلي كما أنا جرين لكن وضي الصومالية لكن وضي الصومالية وضي الصومالية ضحرمها الصومالية مركي هوريد iyo xilligii burburkii wixii ka dambeeyay wallo riisamkii xilligii nimanka islaamiyiinta waxa soo dhawaad joogay dalka arrimihiisa hadba meesha marayeen waan la socday laakiin waxaan leeyahay odayaashu Soomaaliyeed talaabo fiican bay qaadeen talaabadaas in dawladda la dhisay oo baarlamaankii wixii muhiimada ay tahay yani in dalkii Soomaaliya doorasho ka dhacday oo madaxweyne lagu si dimuqraadiga ah la isku doortay waxaan leeyahay odayaashu waa dadaaleen kaalintoodina way ka soo baxeen dowladda wax qabadkeeda sidoo kugu muuqdaa waqtiga dowladda xagga dowladda aniga shakhsiyantayda sidaan wax u arko waxay la tahay dowladdu waxay u baahan tahay waa la aqoonsaday iyo Mareykan ay aqoonsaday iyo macnaha aniga macna weyn ma samayso macna weyn waxa ay sameynayaan dowladda dad kale waa dadka Soomaaliyeed siday u arkaan dadka Soomaaliyeed siday dowladda ula shaqeynayaan siday fursadda ula shaqeynayaan waxa la rabaa dowladdu dadka Soomaaliyeed inay hadda kadib niman aqoon yahana oo odayaal ah wax garad ah oo iska Soomaaliyeed iska qabiiliyeen iska tahdana waxa la rabaa dad oo dadku ay soo istaagaan oo sharaf leh oo wanaagsan mar walba inay casunto u yeerto wixii wax jira dhibaatooyinka jirta dadkaas ay xaliyaan mar walba xalka uu yahay waxa sheega wax kasta dowladda Soomaaliya waxa muhiim ah dadka Soomaaliyeed iyaga askale waxaan dayana ilaashan Mareykan noo ilaalinayo reer Yurub noo ilaalinaya ninka la ilaalinaya waxa dowladda marka saadina dadka mar walba ay u soo dunto. Mr. Ubada waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee alaaba falanqeeya arrimaha Soomaaliya haddaan ku weydiiyo siyaasad ahaan siyaasadda dowladda federaalka aan ku meel gaarka inay ku dhaqmayso iyo siyaasadihii dowladihii ka horreeyay ku meel gaarka ay ku dhaqmayeen sideed u aragtaa in kala duwan yihiin? bismillahir rahmaanir rahiim intaan Cabdi Fataax oo su'aashaada u gudbin waxaan jeclaan lahaa inaan occasion kan kaga faa'iideysto inaan tacsi u diro Allah u naxariistay Suldaan Cabdi
suldaan cali sonkor oo dhowaan ku geeriyooday magaalada nairobi ahaana suldaan weyn oo soomaaliyeed gaar ahaana gobolada jubbooyinka eheladiisii iyo qaraabadiisii baan u dirayaa tacsi waxaan leeyahay allah raxma taas marka aan ka soo gudbo oo aan anaa inooga wakiila dhammaan qodobka labaad waxa weeye su-aashaadii markaan usoo noqdo ka siyaasiyan waa kala duwan yihiin waxaadna moodaa inay in badan macno badan tahay tan hadda maanta jirta sababtay ku macnaa badan tahayna waxay tahay dee horta dowlad ku meel gaaraba maaha waa dowladee taam ah xagga siyaasadda caalamka iyo masraxyada sida ay ka tahay amase waxyaabaha ay gudubsan karto oo ka dowlad ahaan rasmi ay u gudubsan karto eedna male kuwii ka horreeyay hadda tii sheekh shariif oo kale waxaan maanta hadda lahayo waa tii kasoo shaqaysay lafteedu oo way leedahay dee ammaanteeda iyo waxqabadkeedii muhiimad fara badan bay leedahay laakiin tan ugu muhiimsani waxay tahay aqoonsiga beesha caalamku sida walaalkay sheegay professor yaxye waa qodob muhiim oo aad iyo aad maaragtay waxtar u leh hadday noqoto xagga aqoonsigaasi xagga dhaqaale hadday noqoto xag siyaasadeed hadday noqoto reputationkii dalku lahaan lahaa golayaasha caalamka amase dadkiisa laftiisa dibadaha maraya oo markii hore dadaan meelna maaragtay lahayn meel ay ku hirtaan aan lahayn hadda si aad moodo inay wax u hadla iyo waxyaabo badan ay jiraan midda kale still waa too early waa goor hore weeye xilli hadda la dhaleecayn karo dowladda innaga waxaan isaga badan nahay soomaali haddaan nahay dhaleecaynta iyo mucaaradnimada inaan la degdegno laakiin hawsha soomaaliya maanta nimanka gacanta loo geliyey ee dowladda laga dhigay xilkaas nasiibka u yeeshay haddee waa niman dab gacmaha la galay meel zero ah oo u baahan in maaragtay institutionskii la dhiso oo la dhiso nabadgelyadii oo wax walba la qabto oo dalkii zero laga soo bilaabo haddee inaan sabrnaan xaq u leenahay oo wixii tala bixin oo aan tari karnana aan tarno sugnana ilaa iyo intii muddaha at least xitaa sanadka kan intuu ka dhammaanayo xilligaa marka wixii ay qabteen dhaliilahooda iyo ammaantooda labaduba waa soo bixi kartaa oo mucaarad waa iman karaa laakiin hadda aan u sabirnaan leeyahay saasaan qaba aada umahadsantaha ubadaa professor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama dowladdani aysan ahayn mid kumeel gaara oo kumeel gaarnimadii laga baxay deeqi sow xaq uma laha deeqihii beesha caalamka laga heli jiray iyo wadamada donoriska ah inay si toosa iyada u maamusho halkii marka hore ay ka maamuli jireen UN-ka deeqaha soomaaliya la siiyo deeqaha UN soomar waa labo caadiyan hay-adaha UN-ta sida UNDP iyo WFP iyo marka xataa dowlad jirto deeqa iyaga soo maraa jiro iyaga wax ku qabtaan deeqa kale oo toos dowladda loo siiyo aa jira oo iyada isticmaali jirta hadda hay-adan samafale u dhisna sideeda deeqa iyadu weydiisatay iyadaa u imaanay iyadaana wadanka gudihiisa wax uga qabanayso laakiin iyadaas kale qorshaha ay ku qabanayso meeshay ka qabanayso waxay sameyn hadda wasaaradda shaqadaas lay kala xiriireen tii kale aninka naloo soo aruuriyay ee dowladda waxaa loo dhiiban la waayey ee loo dhiibi jiray iyaga taas otomaatikale waa ka wareegay waxay ku wareegay dowladda inay iyadu toos u qaadato kuwa iyagu iskood ay u lahaan jireen xataa waqtigii kacaanka ama ka hore adu wadanka waa joogi waxna waa ka qaban jireen waxay soo helaan isagama samayn karaan waxay doonaan shaqaalaha ay doonaan oo ajnabiga ma keeni karaan waa in wadanka qofka ay keenayaan aqoontiisa sharciga inuu ku joogo xataa mushaarkooda la cashuuraa qaar xuquuq badana qofkaas koraysay lagama qaadi jirin hadda iyagaa waxay sanifaya halkaas inuu iskuul ka dhiso iskuul kalea ku yar mid kaleo ka dul dhisaa hadduu doono ma qabanayo waa lagula xisaabtama hadda marka markii lacagta magacaaga kusoo qaaday mid oo kuu qaadi jira kuuma qaadin kari adaa toos u qaadinaysa tii magacaaga kusoo qaadan waa kula xisaabtami kartaa hadda saas isu bedelaan marka awooddaasana ay hadda hesho dowladda okay ubada madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya wuxuu ahaa shaksi aan la filayn inuu kusoo bixi doono doorashadii markii la saadaalinayay doorashada xilligii dhiciis ka hor guddoomiyaha baarlamaankana sidoo kale waa laba shaksi oo si fudud ku helay jagooyinka maanta ugu sarreysa dalka ma la dhihi karaa beesha caalamka dadkii ay wateen maadaama ay ka dhex waayeen meesha si gaabis ah ayay ula shaqeeyaan dowladda federaalka ah waa su-aal aada muhiim cabdifataaxo anigu haddaan ra'yiga aan ka qabo siyaasiyan aan eego ma jirtaan u malaynayaa sababtoo ah beesha caalamku hadda waxay u diyaar garowday dalkan in wax ka qabsoomaan oo lafteeda dana badan oo dee istaraatiijiyadeed oo dhaqaale kuwa amni iyo kuwa gobolbale iyo kuwa caalami ah labadan shaksina runtii waa laba nin oo aqoon-yahana oo professor jawaari oo kale hadda nin aada usoo shaqeeyey oo muddo dheer maaragtay dee kusoo dhex jiray siyaasadda ah xasan laftiisu waa nin ka warhayay dee president xasan nin ka warhayay buu ahaa intiiba dee 20 sano hawshu ay maaragtay jirtay marka exactly waxaan isleeyahay iyaga laftooduna xilli la odhan karo waa dadaal yar yihiin ma hayno inkastoo looga baahan yahay dowladdu inay la timaado ajendayaasha gudaha wax badan baa looga baahan yahay inay la timaado political strategy dhab ah
oo lagu shaqeynayo ama tii gobolada qaabkii maaragtay kalsoonida ummadda Soomaaliyeed ay u siisay markii horeba u dooratay inay shaqadoodina u siiso markay aragto maaragtay practically wixii ay u qabteen marka saasaan u arkaan hay Xuseen maxaa ku daraysaa fikirkaas أنا وحكي درمي وسيد نوادر وش شيء waxaan qabaa horta fikirka Soomaalida ee ah ku tiirsanaanta beesha caalamka wax la yiraahdo ama beesha caalamka ayaan igu tiirsan arrinta inay iska ilowdo hadaadan wax qabsan beel caalam wax kuma qaban karto beel caalam wax ugu qaban kartaa dad israacsan wax noqon kara israaba inay dhibka ka baxaan iyagu diyaar u ah inay dawlad dhistaan iyagu diyaar u ah marka dawladda hadeer waxaan qabaa way fiican tahay ilaa hadda laakiin sida saaxiibadayba sheegeen way istawaale in la yiraahdo dawladdu waa meeshii la rabay ma socoto iyo meeshii rabay u socoto laakiin at least halkan sano ay soo socoto markii la eego waxaan arkaynaa bal dawladdu direction ka ay qaadi doonto inay dhabihii fashilka qaadi doonto inay dhabo wanaagsan okay beesha caalamka si gaab sameeyay ula shaqeysaa xukuumaddan ma lama dhihi karo say la tahay waayo ragii u horeeyay oo dawladdan ka sii horeeyay beesha caalamku sidii u arkaysay iyo sidii u yaqiineen anagu waan ognahay nimankan niman aad loo yaqaano dawladii hore ku soo jiri jiray institutionada waxbarashada ka soo shaqeey jiray oo aad loo yaqaano haddana urur active ah inay ka soo jeedeen waa la yaqaano marka beesha caalamku maanta macnaha si gaabis ula shaqeynaysa anigu ma qabo arrinka aad u mahadsantahay professor Camar waxaa ku daraysaa horta saadaalinta lama filina waxay ku xiran tahay qof aad u filaya inay noqon doonaan qofna waa kadisay ku noqon kartaa taas iyo ku xiran beesha caalamku raggan ma taqaan lama dhigi karo beesh ku hore oo aqoon badan tahay beesha caalamka weligood la shaqeyn jiraan safaaraday la shaqeeyeen hay'adaha caalamiga UN la soo shaqeeyeen hay'ado badan oo ku wada arkay oo ka shaqeynaa hore oo wada aqoon raggan marka beesha caalamku CV-gooda ay haysatay baa dhinaca dadka qaar cusub ay dhigi karaan weligood arkin xaguu joogi jiray kan laakiin CV-gooda wada yaqaaneen sabab ay uga gaabisa marka iyo muuqata laakiin marxaladda gaabis oo iska hubso maxaa ka hor iman doona jaalanju soo noqonaa ummadda Soomaaliyeed in aad loo darsiyo ah markasta waxaan noo soo korbaro in wax la mucaarada la iska barto 20 sano qofku wuxuu ku soo barbaaro wax uu dawlad la eryayo dawlad wax laga sheegayo dawlad qofkii intaas kale arki jiray meeshiisu 10 ka sii wada qofki marka xaaladaha ka imaan kareen wali beesha caalamku hubin maana muddo oo la gaabiyo leerana beesha caalamku waa gaabisay ma dhigi karno sababtoo beesha caalamku go'aankeedu ma aha dawladahan galbeedkeeda aragtay wax inta nin dictator maanta gaarlay Soomaaliya waxa loo qabto process dheer Soomaaliya cashuur waa inaad qanciso dadka cashuurta laga qaado in baarlamaanka soo marto baarlamaanka Japan $5,000 hadii dawladda Japan bixinayso oo deeqa baarlamaanka la marsiya long process u baahan marka waqti oo process-koodii oo dhamaan karna laga yaabaa in aan ku degdeg badanahay inaan tahay okay Xuseen ururkii al-shabaab awoodda ku lahaa koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya awoodiisa si aad ah loo wiiqay waxaana goobo badan la wareegay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kamid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya sida Beledweyne Baydhabo iyo Kismaayo durbana waxaa bilowday siyaasad ah ku saabsan qaabkii maamullo lagu sameey lahaa goboladaasi ma la dhihi karaa horumaradii laga filan karay dawladda in maamullo iyo nabadgelyo ay dalka oo dhan ay ku soo dabaasho ayay caqabad ku noqon kartaa siyaasadka maamul sameynta goboladaasi arrintaas oo maamul sameynta waliba federalismka waxaan qabaa Soomaalidu uma bisla oo ma gaarsiisna heer yani federaal dad isku raaci karaayiin maadaama dad iska qabaliyo aragtidooda qabiil ku saabsan tahay ay tahay marka dad badan baa federaliskaas waxay ka qabaan dhibaatooyin ah qaarkood in marginalization lagu sameeyo doono ama si maaragtay inta qabiil ka baawar weyn dhexda gashadaan marka ay noqdaan dad yaro maaragtay codkooda aan si fiican loo qaadin laakiin haddii sharciga iyo kala dambeynta uu shaqeeyo qof walba xuquuqdeedu helaya waxaan qabaa caqabad weyn bay dawladda ku noqon doonta waana la filayo awalba waa arrintaa la yiraahdo federalismka arrin siday anu ma aqaano sida dawladda Soomaaliya si arrintaas ugu tallaabsan doonto laakiin waxaan qabaa hadda caqabada ugu weyn hadda hortaagan federalismka ka dib ayuubada wallahi wax yar baan saaxiibkii Xuseen kaga duwanahay waxa weeye federaalku horta waa kii uu ku yimid dawladda tan maanta ay taala manifesto ay ku timi ama wixii qoraa midna waa muhiim oo taariikhda mid baynu ognahay oo hadii dastuurka sharciga ah ee dalka u yaala ay madaxda qaranku qadariso oo madaxweynuhu shaqadiisa ku ekaado
oo prime ministerku tiisa ku ekaado oo afhayeenka baarlamaanku tiisa ku ekaado isla mar ahaanta iyadoo la tashigii guud ka dhexeeyo oo aanay ahayn maaragtay haddaan madaxweynihii ahay ambaasadorada magacu wadaan xaq u leeyahay ama janaalada ciidamada kalena tashan maayo nimankan kale odayaasha ah xoogaa waxaad moodaa inaanay wuxuu isla wadkay ku fiican tahay iyadoo shaqadii haddaan la kala leeyahay madaxdu haddii ay qadariso dastuurkana wuxuu waa soconaya oo si wanaagsan bay u soconayaan midda kale tan aad tiri hadda gobolada dhibaatooyinka ka taagan oo kale waxaa ka mid ah mid buu xuseen ku saxan yahay waxa uu ku saxan yahay annagu qabiilka ayaa wuxuu nagaga weyn yahay wax walba waxaa laga yaabaa anigu hadda jubbooyinka oo kale hadda maamulka loo dhisayo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay 3-4 degmo aad gobolkaa ku leedahay qofna uuba yahay 60 qof qofka gobolkaa degan oo dhamiba oo reerkaas ah haddii xaq wuxuu leeyahay inuu wixiisa helo gudoomiye gobol heliya midka yarka ah kanina uu wixiisa helo iyadoo aan la riixayn oo aan la lahayn moogta waad yartahay ama ilaahay baa ku yareeyay waxaa loo baahan yahay marka in cadaaladuna shaqayso qof walbana uu xaqiisa helo iyadoo markaa sharciga la raacayo oo kii dhaqanku aanu meesha ka maqnayn dawladuna dee maamul goboleed la samaynayo ay ka maqnaan karta anigu inuu jiro u malayn maayo kor ahaan because waa facilitator iyadaa wax badan looga baahan yahay aqoonsigii baa looga baahan yahay markay eegto cadaaladda halkaa ka soo baxday nooca ay tahay waa ku tala qaadan karta iyadoo marka horena wax ka qabanaysa hawsha marka wax dhibaato ama leh haddaan waxa la cuslayn haddiise la cusleeyo iyagoo si hagaagsan ku socda culays bay noqdaan waxbana kama socdaan oka professor maamulada gobolada qaar tan haddaan ku naqan haye tan wax yar ku darso horta waxaa tiri nimanka shabaab xoogooda waa la jebiyey meelo badan waddanka aniga weli ma qabo taas shabaab technical laga soo qabtoo badanoo weli xamara ka yimid haddee meel lagu qabsado ma arka madaxooda waa joogtaa ideologigooda waa joogaan dagaal 5 qof iyo 10 qof uga dhimatay waa aragnay saanad huboo kayd oo shabaab la qabtana ma arka laakiin dhulka waa laga saaray qolyo lagu diyaarinayay wax caawa operation ah oo la qabto waa marka awoodii shabaab ee technically ay haystaan raggooda madaxda ay joogaan fikirka jiro dhaqaale jiro weli lama fuudaysan karo inkastoo gobolada qaar dawladda ay tagtay ayuu ciidamadan kale isla socda huwanta ay tageen haddana shabaab dadku say u underestimationka lagu sameynayo ma aha xaaladu lama defeat galay inta dagaal goob lagu galay shabaab meesha lagu jibiyay lama hayo oo hubkoodii madaxdooda iyo saadkooda marka ciidan jibina waa la yaqaan laakiin dagaalo toos oo lala galay dawladda aad ugu gacan sarreyso meel walba ka qabsatay waa ogahay dawladda iyo Uganda iyo soo socda waa ka baxay AMISOM laakiin meelahaas hubka xamar Soomaaliya lagu dagaalamo zuu iyo dashiikiyaal shabaab leeyahay baawartooda la qabto weli ma hayn madaxdooda la qabto ma hayn dhaqaalooda weli sidoo helaan haddana hadda gobolada laga qabtay gobollo kale kusii fido waa iyada lafteeda waa culays tan oo maamulka gobolada shalay waxaan arkayay hotel Nairobi ka mid ah shir oo xildhibaano badan ay ku shirayaan oo leeyahay waa xildhibaanadii beesha hebel oo ka tashanaya maamul goboleedka idabta waa khalad aday xildhibaana tahay haddii gobolka aad u doodaysid baarlamaanka aan kuu samayno mushaarad naga qaataay baarlamaanka dhexdiisa inay ishuuga uga doodo marka Soomaaliya dhan inaad ka dhigto Soomaaliya kala dhaxeeya laakiin shaqadii filimkii laga soo gudbo Nairobi reer meel ku shireen in la ku soo celiyo waxa malaysa wali riyada ku meel gaarka in xildhibaanada qaar ay qabaan ay haboonta in halkaas tagaan waa run dastuurkeena waxaa ku qoran Soomaaliya waxa lagu dhaqaa maamul federaal dastuurku waa guide waxa lagu dhaqalo taagan laakiin sharciga gobol lagu dhisay kii degmada lagu dhisay kii tuulada lagu dhisay kii state weli lama sameyn waxaa imaanaysa marka in degmadan si isu dhisto degmadan nooc ka duwan ay u dhisanto taas mid kale ay u dhisanto hadhow gobol si isku keenay wax laga maarmaayo marka dawladdu inay markaan faragelin ay ku samayso facilitation ma dawladdu inay leedahay hebel ha laga dhigo iyadoo la tashan dadka meesha dabcan dawladda iyo deegaanka dadka jooga in barxad magaalada isku taal isugu yimaado haddii tuulo la dhisayo tuuladaas geedku dadka la isugu keeno tuulooyinkaas degmada ha sameeyaan degmada fagaaraha lagu dhiso gobolka fagaaraha ku dhiso si almeen wax uniform usoo eg ay u noqdaan haddii kale la yidhaha dawladda dastuurkeena ugu qorantaa federaal waa ku qorantaa dastuur maxkamad yaalla oo wax lagu xukumo ma jiro sharci hoosaadyo badan u leeyahay weli sharci hoosaadyadii lama sameyn oo federaalka aan ku naqan lahayn nuuca u naqana adduunyada intaasoo federaala ka jirto federaalka Jarmal ka jiro iyo kan meel kale ka jiro isku mid ma Nigeria waa federaal noocay tahay noocaan qaadma dawladda Ethiopia federaal waa ma dawladda iska koobinayna maya waa inuu noqdo federaal oo alamooda Soomaali ah oo adiga kayimi oo adiga noocaaga ah oo xaaladaada aad ku dhaqan karto ana naqan dabcan consensus badan inay ka horeyso dadkii hadii meelaha qaar la tuumaayo oo khilaafiya inay ka jiraan iyo wax in wax la soo dhaweeyo inta wax la sameeyo laakiin automatically hada hore wax laga dhiso fashil ay keeni kartaa hal suuq lafteeduna waa dheeraanay
maamulada qaar waxaa la sheegaa inay dabada ka riixayaan dowlada dariska ah. Sow ma fiicna dowladda federaalka ah in maamuladaas loo madax baneeyay oo ayadu maamulada la sameynaya dalka maadaama aysan ku meel gaar ahayn ayadu u madax banaanaato. marka hore igada laga soo go-aami jiray arrimaha Soomaaliya oo xubin ka ahayn igadna urur siyaasadeed ma inay mandatekeeda idaas ka fidsatay intergovernmental agency for development horumar loo sameeyay marka arrimaha Soomaaliya waxa ay qaqasbeen iyo Eritrea markaas shaati siyaasadeed gashatay waana urur dhaqaale iyo horumar wahay marka hore dowladda igad ku jiraan interested ku ah inay gobolada iga soo xigo dad iyagu ay rabaan ama dana ay ka leeyihiin laakiin iyadan filinkaas hadda inuu dhamaado u maleynaa dowlad ku meel gaar ma dowlad buuxda jirta waxa ku filan iyadoo tira arrimahaas ka bax soo iyada ciidamo ay ka joogaan wali siyaasadda kaaga xariin haddana si kale loo dhigi karaa markaan hore looma dhigi karin oo danayga anoo baacsanaya cadow iga soo baxsadana waxba lagu marmarsoona cid aad ku tiraahdo ma leeyahay hadda adoo daciif xataa cid aad ku tiraahdo leedahay oo iga dhaxdeeda voice buuxad ku leedahay hayo bada in dowladaha igad ay faragelin ku sameeyaan maamul sameynta gobolada ayaga soo xiga dalalka dariska la Soomaaliya soo kama wanaagsan oo dowladda federaalka soo xaq uma laha inay ayada maamulada u sameysato gobolada dalka Soomaaliya. wallahi Cabdi Fataax oo taasi professor Yaxya aad uga mafug saaxiib sababtu waxay tahay dowladda Soomaaliyeed ee buuxda marka la leeyahay de wax dowladda darisi arrimaheeda gudaha ay u faragashato waxaan u maleynayaa inay khalad tahay sovereignty-ga dalku waa madax bannaan yahay dowlad rasmi uu leeyahay hadduu hadeer wixii la rabo hala bilaabayo moogtahay laakiin dalku madax bannaanidiisii waa uu leeyahay mana aha wax la faragelin karo mana qabo anigu in la ogolaado faragelinaha caynkaas oo kale ah waxaa jirta in Xuseen ciidamada dowladda Itoobiya hadba xilliga ay rabaan ee dalka Soomaaliya soo gali jireen xilligii ay jireen dowladihii ku meel gaarka ay ka horreeyay dowladdan haba kala dambeeyaan iyagoo sheeganaya inay baacsanayaan qolooyin ayaga la dagaalamayaan sida ururka al-shabaab oo kale markaasna dowladihii ku meel gaarka dalka ka jiray wax awood uma aysan lahayn kamana aysan hadli jirin dowladdan inkastoo awoodeeda ay laftirkeeda aad u yarto ciidamada ay adeegsanayso ciidamo shisheeye amisom ay yihiin awood ma u leedahay ayaa is leedahay in ay tiraado ciidamada Itoobiya ama ciidamo kalaba haday dalka soo galaan inay tiraado xaq uma leeyihiin dalkina soo gashaan inaad ka amar qaadataan dowladda horta xaq ma u leedahay markii la yiraahdo xaq waa u leedahay sidaas laakiin siyaasadda caalamka ku wada dhaqma ma qabto saas waxay qabtaa wax la yiraahdo diplomatic channel in loo maro wax walba meeshii media iyo waxyaabo kale hadda dowladda Itoobiya ra'yigay ka qabto hadda Itoobiya waa joogtaa gobolada dhexe adigu magaalo yar waxa la sheegay 5,000 oo nin ka joogaan meel kale waa la sheegay Baay Boqol waa la sheegay Gudub waa la sheegaa anigu ma ogin laakiin dadku wararka sheegayaan inay joogaan ra'yiga dowladda Soomaaliya ay ka qabto ciidanka Itoobiya hadda ee gudaha ku jira Soomaaliya aad ulama socono inay yani positive macnaha waa ogahay shaqadiina wata inay tahay inay Itoobiya ay diplomatic channel hoos inta warqad u qortay tirada Itoobiya sovereignty-gina waa lumaya dadweynaha Soomaaliyeedna waxaan raalli kama ahay ciidanka nagala noqdo anagu ma naqaano waxay ku wada hadleen laakiin kulli waa iska warqaban dowladda Itoobiya laakiin waxaan ku sheegayaa qofka bani'aadamka maalin ba heer u maraya heer qofku marka bani'aadamka waxa jira god ku jiro qofku markuu god ku jiro iyo markuu banaanka taagan yahay oo qof nool oo wixii haysto isku filan yahay kala laba Soomaaliya waxaan u arkaa in dad god ku dhacay oo dhinac walba isku riday godka isku riday maanta si caqliyeysan min caqli badan ama dad caqli badan oo madax oo wax kala maslaxeeya oo awoodana intay tahay oo dariska luqadda lagu hadli karo oo dawladaha powerka luqadda lagu hadli karo muhiim waay laakiin marka anagu hadda Itoobiya dawladda meesha kala marayaan anagu aad uga wahay professor horta Itoobiya waqtiga hore ku meel gaarkay hadaba weligeed iska soo gelin Soomaaliya fasax la'aan beel lagu sheegay heshiis waa inay Itoobiya dawlad jirtay oo ogtahay haddii qof gudaha ku disho bari dacwo ay ma karto sayna u dhacin waxay madaxda la sheegay jirto ay jirtay wadankiina laga soo weeraraa waxaan rabaa inaan intaas gudaha u galo iska celiyo waana loo ogolaa jiray sababta saacada la joogo xuduudda Soomaaliya hal ma xooga dalka Soomaaliya joogo ma laha ama guuto degan oo looga xuduud noo ilaaliso ma qabno
ninka ama runankaa daba beerankaada waxaa kule tuuga ay soo galaan baaxsanaay xaggaago naga soo aaday anaa kaa celaa ma dhihi kartid meesha ma joogta adiga hal nin xuduudka kuma joogo marka waxay hurweyto inaad iska ogolaatid marka walahi khatarta ka sheeganaya ninkan yaa adigana ku dhimin laakiin hadda waxaa umalaysaa boosisha yar oo ah wadatashi intaas ka badan inay geli karto intaasoo saacada soo geli kartaa intaasaad jooga sababtaa usoo gelaysa ii sheeg kan aad baacsanayso muxuu ahay su-aalo badan hadda dawladda weydii kartaa meelaha qaar dhigi kartaa meeshas kama soo geli kartid anaa difaaceeda ku filan dawladaha dhan caalamkana waa jirtaa dawlada inka xuduudaan ba leenahay wadama ina xuduud leen inta weeraraana yidhaaheen danaha maraykanka khatar galay saasaan u weerarna meeshaas marka qofka kaa xoog badan dana kugu marsimoodo daba markaas adigu wax qaban karin ma weynaayo haddaan fiirino dhanka fursadaha ay helayso dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay professor adan ku weydiinaya waxa ay sheegtay inay soo celinayso xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay dowladda Soomaaliya muddo 20 sano kadib ah muxuu u soo kordhi karaa dowladda federaalka aqoonsigaas ay ka heysay dowladda Mareykanka horta aqoonsiga dowladda ka dhaxeeyo anaka qaran iyo dowladda aan kala saarno qaran Soomaaliyeed weligiis waa jiray calankan meelo ka taagna UN-ta 20 sano kama dhacin meel kasta waa jiray laakiin dowladda macaamilkeeda xadidnaa adiga hadda jiritaanka qofna inkiri ma karto qaran kala aan wax xisaabina laakiin marka dowlad ka dhigno aan waxa ku dhigi karaa kula macaamil ma xaafadda ma dhigta ninka wax ka iibsameyn waxa dhacay malaha waxaan leeyahay kabaashtaadi ajiira awood oo wax ku qabto sida cunuga saqiirka oo hantida looga dhinto qarana loo magacaabaa ninkaana u maamulaya xoolihiis asuu ma maamulo kari ama qofka doo xoogaa waalay waxa leeyahay xoolihiis waa loo maamulaa waxaa ka maqan ma buuxo inuu hantidiisa maamusho hadda waxaana loo aqoonsaday inaan anagu waxaana maamulo karno inaan heshiiska rabna aan geli karno dowladda rabna aan la macaamili karno saakada waxaa maqlaya dowladda Mareykanka safaaradda haddaa tagteen in la yidhi qofka Soomaaliga Ameerika rabo hadduu processkan soo buuxiyo fiisa caadi uga qaadan karaa soo siiya baasaboorka waxuu yeeshay cid dambeena qof lala macaamili karo yeeshay oo ninkii khalad gala ama baasaboorka ma ku jiraa kaydka liiskaaga ma laga helaa baasaboorada oo kale aqoonsigu marka dowladda laga waaweyn Shiinaha waaweyn dowladdaas adduunka ugu dadka badan kuma jira UN-ta iyo malahayn iyo jasiiradda mathalaysa intaasoo sano Shiina waa qaylinaysa dowladda oo la jira kamid ahayn Shiina xoog kama maqleen ida adduunka ugu dad badan haddana looma aqoonsanayn inay xagga cod ku yeelato markii dambe la arkay meel la celi karin xaaladii ay awood laga qaaday jasiiradda Shiina weyn ee la siiyay awaaran kuleena lafteena qayb aan ka qaadanay Shiina maxaa ka maqnay marka in la yiraahdo adoo Shiina aan kula macaamili karaa laakiin Mareykanka oo ku aqoonsan marka dowladda badan oo ku soo jeedo wala marxaladaan oo kale aad ku anfaca hadda dowlad jirta Mareykan uma baahan 63 meel Mareykan Ingiriis safaarada ka raacdeen xaq Jarmalka mara erin waxana nooma dhimanaadan markay dowlad jirto erin lahayn bal marka hore inta ku soo naqanayno in la aqoonsado waana taqaanaa doorka Mareykanka oo adduunyada ku leeyahay dhaqaalahaan iyo ciidan ahaan hadduu asuu ku aqoonsado xirtiis dhan hore ka raacay oo dad carabtaani wax badan oo soo jeedin hadda khalla Mareykan ma aqoonsado annaga aqoonsado ku leeyahay waa walaalka diris waa intaas oo wuxuu sugayay amar marka furan maqnaayo malaysaa oo dhinaca macaamilka ah laakiin qaran waa weligeena qaran waa laakiin government macaamil geli karto ana la ogolaa ilana oo iyada arrimahaaga adaa lagala xiriiray wakiil meehiga loo baahno dowlad kale oo Afrika halkaas ku sii hayna loo baahno adaa shakhsiyan kala macaamil arrimahaaga ubada maxaa fikir ku darsanaysaa adiga sidee u aragtaa aqoonsigaas dowladda Mareykanka ay siisay dowladda federaalka Soomaaliya wallahi professor Yaxya baa dhamiyay Cabdifataah oo inteedii badnayd waxaan u arkaa dowladda Mareykanka horta waa dowlad weyn janala badan garaaci karta oo dad badan adduunka hadda baawarka qudhun baa jiray Ilaahay ka suku waxaan qabaa iyadu saaxiibo badan ha noqoto hay'adaha kan lala galo agreemanada caalamiga ee World Bank iyo IMF iyo waxaas oo dhan wixii marka ninkaasi uu aqoonsado had iyo goor waxaad moodaa in hawsheedu shaqayso oo maaragtay caalamka la isdhinac taago laakiin midda aad ka muhiimka u ah oo aan marnaba la dhaafi karin waxay tahay inagoo waliba muddo qabsanayno oo muddo siinayno hadda aan lahayn dad mucaarada baan nahay oo hadda oo kale waxaan ku darayaa dadkii Mareykanka mudaharaadiyay madaxweynaha ku mudaharaadiyay oo kale ama London oo hadda uu marayo hadday doonaan ku mucaaraday waxa weeye waa wax aan hadda loo baahnayn xilligan sababtoo ama beel ha noqdeen ama dad gobol arrintii u dacwoonayo ummado isku jiro oo Soomaaliyeed baa noqdeen waxa wanaagsan inay waqti ballana ka qabsadaan oo xaajada ay iyagu markaa kaliya ugu mudaharaadayaan ay kala hadlaan on the other hand waxa yana imanaysa inay hadii aan jaanis jirin waxa ay ka cabanayaan qoraal ahaan ku gudbiyaan
ama sekretariyadiisa ha noqoto ama isaga iyo wixii la halmaala ha noqoto marka mudaharaadada dowladda hadda saas oo kale curdinka u ah maaragtay haddeerba safaradeedii aqoonsigeedan macaamileed sida uu sheegay professorku ah aqoonsi ahaan dowladahan weliga ma u jirnay haddee waxay ku fiican tahay reputationkeedii iyo international imagekeedii intaba waxbay yeeli kartaa waxa ay u mudaharaadayaanna markaa waa un wax iska qabali iyo arrimo lamid ah waxaa loo baahan yahay kala kulmaan instead ay mudaharaadi lahaayeen oo ummaddu ina arki war dadkaasi meena dadkii hadda madaxweynihii ahayn ee halka kan marayay maaragtay waa furan yihiin mudaharaadadu laakiin xilli bayna leeyihiin wax ka horeeya oo badan oo la marayna leeyihiin marka waxaan qabaa arrin faa'iido inuu dhammaanteen qof walba Soomaaliya haddii la helo maamulkeedii iyo nidaamkeedii aqoonsiguna wuxuu muhiim u noqonayaa sidii Xuseen markii uu wareysay warka ku bilaabay gudaheena in aqoonsigu ka yimaado that is very important in adiga marka hore adigu shacabkaaga gudaha ya tan dabadu waa shaqaynaysa hadda waa ku mahadsan yihiin maamulka sare hase yeeshee gudaha waxa loo baahay platform dhab ah inay la timaado ay wax ku qabanayso waka maadaama aad tahay ubada siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya aad ula socda Somaliland waa dal gooni isku taagay muddo 20 sano ah ka badan ilaa hadda sharciyo baarlamaan ay sameysteen doorashooyin kala dambeeyay oo si dimuqraadi ah isku soo doortay muxuu ahaa horumar badan oo aan la inkiri karin ayay ku talaabsadeen oo kamid tahay doorashadii ugu dambeysay golayaasha deegaanka ee ka dhacay doorashooyinkii ka horreeyay xildhibaanada iyo golayaashooda guurtida iyo wax dhan qaab doorashaha lagu soo doortay ilaa madaxweynaha waxaasoo dhan weli ictiraaf ma aysan helin muddo 20 sano ah aqoonsigan dowladda Soomaaliya la siiyay muxuu fursadahu u yahay Somaliland muxuu soo dhibi karaa waa su'aal aad u fiican saaxiib waa mahadsantahay horta deegaamada aad sheegayso anigaygan kula hadlayaa ka soo jeeda oo koonfurta sanaag baan ka soo jeedaa anigu Arigaabo midi waa muhiim horta de caalamkaaba waday wada hadallada tan oo mindhaawaaba loo balansiiyay waa hadda la sheegay ma garata marka iyada inta u dhaafi maayo professor والله wax weyn hadda oo farqiga uma arko horta aad loo kala fogaan anka Soomaaliya anku isku furan xuduuda iyo waxba noo jirno qofa meesha rabaa Ingiriisi Talyaani ay mid meel noo sameysteen oo askartood ku kala ekeed markay naga tageen waxaan leenahay waxay ka tageen ma jirto oo isku darsan waxaan haddana kadib dagaaladii waxay burburay ma aan Soomaaliland kala xataa gobolada kala sida u kala gool isu mari karin ma fogaan hadda oo nimankan Somaliland walaalaheena lama bixin Republic Nigeria ama Gujuri ama Hawjuri waxay la baxeen Somaliland macnaheedu maxaa dhulkii Soomaaliya iyo Soomaaliya wada shiraa wax si kala fog oo jamhuuriyadda dhulka Soomaaliyeed la baxeen dhinacana waxa la joogaa Soomaalida federaalka oo wax weyn hadda maanta Hargeysa dadka laga ma soo karo lagu tarjumi maayo horta ummad wax isku wada mid ah waay ay Xuseen hadda leeyahay inuu waxaan ku jirahay mar walba dowladda Soomaaliya weli fursadaha u bannaan waxa ka mid ah in dadka aqoon-yahanka ee kala duwan Soomaaliya wax ka ah mar walba caasimad u fiiso mar walba ay tala ka dhiibtaan dalka mar walba meeshii dhibaato ka jirto dadka arrimihiisa sidii loo dhaxgali lahaa ay kala hadlaan dadka haddii loo soo kordhin wax badan ay kusoo kordhinayaan ama Somaliland ama Puntland ama gobolada dhexe ama meel kastoo dhibaato ka taagantaan waxaan qabaa mar walba in dowladdu badiso oo golaha wasiirada iyo wax saas aan lagu eegin ay badiyaan dadka aqoonta leh ee Soomaaliya markii ka hadlaan loo soo istaagayo in war dalkeena haddaan anagu gacmaha isqabsan yani waxayna soo maray waa ogtahay qarannimadii naga luntay waa ogtihiin dhibaatadii dalka ku dhacday waa ogtihiin mashaakilaadka iyo sumcad darrada qofka Soomaaliya maanta meel kasta uu joogo yani ceeb baa ka taagan marka in dowladdu mar walba waxyaabaha yaroo dadkuna 100% Ingiriisku ma no one can please all the people qof dadka oo dhan barci karaa horta ma jiro ilaahay baa wax barci kara laakiin waxaa la rabaa at least dadka majority-isa in la qanaciyo oo la aqoonsaday Mareykan iyo ina yaqaan iyo waxa inta la joojiyo dadka Soomaalida walaalnimo loola hadlo oqaashada loola hadlo ogaasiyadooda la casumo wax garadkooda la casumo mar walba talo looga baahdo la yiraahdo war arintii dalkeena waan gacanta ku dhigay guushi waa noo timaan gacanta ku dhigay anu saasaan qabo waa mahadsantihiin waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan rabaa talada ugu dambeysa qof walbana inuu soo koobo adiga ku horeynaya Xuseen ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ka daawanaya TV-ga caalamiga Cable TV shacabka Soomaaliyeed horta waxaan
ka codsanayaa inay dowladda jaanisiya oo mucaaradka lala degdeg oo waxyaabaha emotionalka oo daqiiqado iyo xisaabaad iska hooseeya aan laga fiirsho si weyn loo fikiro oo dowladda la shaqeeyaan wixii ay u arkaan waxa iyagu iska leeyihiin dowladda federaalka anigu sidaan hore u sheegay waxaan ka rabi lahaa inay dadka waxgaradka iyo ogaasyada mar walba oo Soomaali beelaheeda kala duwan ay gacanta ku hayso oo u yeerto casuunto mar walba oo ay mar walba talada ka qaadato suura keento meel la shaqo shir laga joogto musaasaba dowladda waxaan kula talinayaa aqoonsiga caalamiga iyo fursad ay haysato inay u isticmaasho si ay dadka wax ugu tarayso waa inay u isticmaalaan masalan hadda dowladdu waxay ugu leedahay inay deyn ka soo qaadato badiga adduunka kale dhacdo waxaan xasuustaa sideetamaad ka dhacday hadda dil ilaa 1 bilyan oo lagu siina dowladda xaq la deenaanay soo qaadi kartaa halkaas bilyan waxaa la bixinaa dib celinteedu waxay bilaabanaa 40 sano kadib ninka bixinaa aniga ma marka ninka isticmaalaya aniga waa soo qaadanaa hore ka saxiixa waxaan rabaa dowladda kalsooni ugu abuuraa laakiin ilmaha aad awood u tahay ama kuwa hadda aad dhashay markay gowaan iyaga laga rabaa dhiidkooda ay naqanaan waxyaabaha diimaha saasa waxaa qaada dowladaha aan moraalka fiican lahayn horta inay nagu soo qaadin wax jiil dab u dhacay ama awoodda la siiyay marna oo isticmaalin wax biri dadka dhibay iyagana maanta fursad ah waa inaan naqad sida aabe oo biri iyo maanta aad ka fikirtid shacabkuna dowladdu waa sideeda waa midi laba aflaah inay aad la xisaabtamaan dowladda waa in dowladda inay naqato mid waxaad ay cad yihiin oo la weydii karo oo la xisaabtami karo iyo inaan qofka Soomaaliga oo kale meel kasta jooga walaalka inaan iska dhaafno fikirkaan ah mucaaradnimo toos inaan maalin kasta أنا معارض ما واحد يسوي سجل هدي خلط جرو أنا شركة حاجة ولا ده أنا أتكهذش أنا بحكي توس لكن دليل فين على أتكلمت هذا هو تو إيرلي إن واحد قيمة ولو الدولة وكلام مركز تاعي أرض سكول كدكتور واحد قيمة سنة كهالمر أنت عنك فين على كذا اللو سجى مركز لكن بالكستا بيش ورث هلا بح بيش ده في عناك يعني مركز جانس إن لسيه لو قيمة كره ugu dambeyntii maxaa ugu baaqi lahayd ugu dambeyntii anigu laba arrimood baan kusoo gabagabeynayaa shacabka Soomaaliyeed baan horeysiinayaa waxaan leeyahay reer hebel 30 sanadood meeshayna dhigtay weyn xusuusanahay iyo kala qaybsanaan iyo wax la midi hadiiba maanta aynu helay dawlad la aqoonsan yahay war aan la shaqeyno oo aan saburno oo wixii aan la qaban karo aan la qabano xilligii qiimeynteeda ay gaadho waa runtii walaalka ee mucaaradnimada maartay ee constructive ka ah dhibaato ma keento laakiin ta destructive ka ba dhib keento wax baabiinaysa waxaan marka qabaa in la isuna sabro la isuna dulqaato mar walbana deganaanta iyo maartay dulqaadka lagu dadaalo taasan shacabka Soomaaliyeed aan leeyahay oo ay iimaansadaan madaxdooda iyo xildhibaanadooda iyo dawladooda iyagoo la xisaabtamay isla marhaanta qodobka labaadan u soo jeedinaya dawladda waxay tahay waxa ay iyadu maanta heshay oo makaaniyaad ah oo aqoonsi ah kubaddu maanta agteeda ay taala haddii Soomaaliya halka ay taagan tahay hore u socotana wax laga sii leeyahay jiro oo dadka bini'aadamka ay ka tagaano de bari waxay noqonayaan niman taariikhda si fiican u gala haddii ay halkii dib nooga sii celiyaan haddii niman taariikhda meel ka galay noqonayaan waxaan leenahay ama dhinacyada la hadlayo maamulka ka jiraan ha noqoto ama ha noqoto qaabkii loo maaragtay accountability-ga loo maamuli lahaa dhaqaale ahaan iyo aqli ahaanba iyo la tashi ahaan sida Xuseen Basheeg ummadda wax garadka iyo ismadii dhaqanka iyo culamaa u diinta iyo dadka ganacsatada ah iyo maaragtay civil society-ga iyo culamaa u diinta aad bay muhiim u tahay marka taasaan iyana kula talinaya waa intaas iga dhantay aniga waa maadsantay aad ay u mahadsantihiin fursadan qaaliga ah oo barnaamijkaas soo siiseen iyo TV-ga caalamiga Cable TV intaas ayaan kusoo gabagabeynayna daawadayaal barnaamijkeeni gaarka ah oo aan uga hadlaynay arrimaha Soomaaliya iyo fursadaha dawladda Soomaaliya ee uga baahan tahay uga furan beesha caalamka iyo waxa looga baahan yahay iyada inay qabato iyo waliba sidoo kale aqoonsiga dawladda Mareykanka ay siisay dawladda Soomaaliya waxa uu soo kordhin doono barnaamijkeena maanta ayaa waxa marti igu ahaa Xuseen Axmed Xalane oo ka tirsan odayaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyo sidoo kale professor Yaxya Sheekh Caamir oo ka tirsan professorada Soomaaliyeed alaabana falanqeeya siyaasadda Soomaaliya waxaan ka marnay barnaamijku asagana qayb ka Cabdirashiid Cabdullaahi Ubada oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada waqooyi dalka Soomaaliya falanqeeyana kana hadla siyaasadda Soomaaliya hadba xalka meesha uu marayo barnaamijku waxa idin soo saaray aniga Cabdifataax Maxamed Cilmi ah intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waa farsamadii Cabdicasiis Ibrahim Cali waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo